dhawaaqaya dhulkooda doonaya hadday u dhiidhiyeen allahayow u dhiib halgan dheer oo ay xorriyadda u galeen walaalaha Jabuuti hadda waxay ku naaloonayaan madax bannaani jirsatay 40 sano. Jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Jabuuti waxay sanadkii 1977 iska dulqaadeen gumaysigii Faransiiska. haddaba halgan noocee ah ay xorriyadda u galeen walaalaha Jabuuti waa kuwii halgamiyaashii doorku in ku lahaa in Jabuuti ay hesho madax bannaani. dhibaato intee leeg ay gumaysigii kala kulmeen shacabkii xorriyadoonka ahaa inuu gumaysigu magaalada Jabuuti gaar ahaan uu ku xeeriyay silig ayaa ku xidhnaan jiray magaalada Jabuuti. Siligaas oo loogu talagalay dadka muwaadiniinta ee reer Jabuuti ee dalka ku nool inaanay soo galin magaaladooda Jabuuti inaanay soo galin. Siligaasi qofka soo dhaafana la xabadeeyo. marka waxay arki jirtay dadka oo siliga gadaashiisa ay waalidadu joogaan laga yaabo caruurtiina inay siliga xagga gudaha joogaan ama se caruurtii oo dibadda ku hadhay ay waalidiintii gudaha joogaan. dadka reer Jabuuti danahooda daryeelka noloshooda. warbaahinta qaranku waxay idiin baahin doontaa barnaamijyo waraysiyo iyo taariikh ku saabsan dariiqii shacabka Jabuuti ay u mareen in gumaysigii Faransiiska ay iska dulqaadaan. ka daawo SNTV kana dhageyso Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. tugayahooday ku dadaalayaan xurnimadooda ku doonayaan